بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. kusoo dhawaada casharkeenii SQL tutorial 1, 2 and 3. sidii aan darsigeenii in classka ahaaba ku baranay isbuucii lasoo dhaafay ama isbuucii ka horreeyayba. waxaan joognaa gabagabadii bootcamp 2019 aan ku baranaynay full stack web developer. waxaan hore usoo qaadanay C# waxaan soo qaadanay front end sida JavaScript, Bootstrap, HTML, CSS. waxaan soo qaadanay back end sida C# iyo databaseka sida loogu xidho MVC iyo MVC core iyo sida loo sameeyo responsive website, controller, model view. waxaa maanta aan bilaabaynaa insha allahu tacaala SQL wuxuu yahay iyo wax uu naga caawiyo iyo faa'iidada uu leeyahay. saddex cashir baan u kala jabinaynaa cashirkan insha Allah. cashir koowaad oo ah kan oo horeeya oo ah SQL tutorial 1 oo aan kaga sheekeyno definitionka ama macnaha uu u taagan yahay SQL iyo inaan sameyno database ama iyo tableka aan wax gelino, sida table loo delete gareeyo, sida database loo delete gareeyo, sida laba table la iskugu xidho ama join loo sameeyo. waxaan ku sameynaynaa waxaas oo dhan inagoo isticmaalayna UI-ga ama user interface-ka, macnaha wax code ma qoraynaga right click iyo click waxaasaan dhahayna, macnaha waa user interface-ka waan tusi doonaa. tutorialka labaad insha Allah oo aan duubi doona iyadana waxaan intii oo kale aan sameyn doonaa iyadana, laakiin waxaan ku sameyn doonaa code SQL codekeeda ama scriptigan ku sameyn doonaa. ka u dambeeya oo aan u malaynay inuu advance yahay ama uu midka ugu muhiimsan yahayna waa cashir saddexaad oo waxa la yiraahdaa store procedure baan baran doonaa iyo faa'iidada ay leedahay. marka koowaad SQL haddaan wax yar intaan bilaaban aan tacliiqiyo insha Allah projectkeenu bishan buu dhamaan doonaa biidhnillaahi. cashir ku xiga wuxuu noqon doonaa web API iyo sida database loogu xidho ama loo sameeyo web API oo secure iyo entity framework iyo link to SQL waxay dhahaan sidan oo aan ka sheekeyn doonaa. C# waxyaabihiisa advanced-ga sida inheritance iyo maxaan ku raahdaayay waxay dhahaan separation of concern iyo object oriented design. waxyaabahaasaan yar taaban doonaa oo aan isleeyahay waa muhiim. ka bacdina insha Allah waxaan geli doonaa insha Allah interviewgii iyo questionadii iyo resumegii inaan diyaarino iyo insha Allah shaqo raadis baan geli doonaa biidhnillaahi. marka aan cashirkii bilowno maanta kan ka shaqeynaa. so first marka ugu horeysa SQL waa database meel wax lagu kaydsado, waana luqad loo isticmaalo waxa la kaydiyay macluumaadka ama ha noqdo product information ama ha noqdo arday magacyada ama ha noqdo jaamacad, wuxuu doonaa noqday macluumaad database oo website ku xidhan meesha la geliyo ayaa loo isticmaalaa in database-kii ama wixii kugu jiray macluumaadkii lagala soo baxo ama aad maamuli kartid, sida tusaale ahaan inaad wax ka tuuri kartid, wax kusoo dari kartid, wax edit gareyn kartid ama bedeli kartid. SQL waxay u taagan tahay structured query language bay u taagan tahay, waa luqad lagu habeeyo query. waxaa querygu waa macnaha wax la rabo waay, inquiry bay macnaha wax la rabo oo la doonayo in la helo waay. marka macnaheedu hadda waa inaan sii macnayna muhiim ah siiha, laakiin SQL structured query language ayay u taagan tahay. database-ka ka caawinaysa waa meesha wax lagu kaydsanayay, waana meeshii markii wax la kaydiyo laga maamulayay. marka maanta cashirkeenu waxaan sameynaa database code inaan sameyno, table sameyno, laba table baan sameyn doonaa, mid la yiraahdo teacher iyo mid la yiraahdo student aan sameyn doonaa. ka bacdi qaabka loo delete gareeyo, qaabka wax loogu daro iyo sida la isku xidho labada table baan sameyn doonaa insha Allah. marka koowaad open your SQL server 2016 management oo kana aan ku dhufanayaa insha Allah wuu ii furmi doonaa. SQL server management studio waa meesha UI-ga ama user interface-ka aan leeyahay waa halkan weeye. okay, markuu saa kugu soo baxo halkan database-ka ku xidhan buu ku leeyahay. of course database-kan waa local computer-keenu dhex yaala, so connect waan leeyahay. uu ku xidhanayaa xaggan uu soo fadhiisanayaa. halkan waxaa ii soo fadhiisanaya database folder-kii
waxyaabahan kale oo dhan shuqul kuma lihin inagu ma taabanayno kamana hadlayno maxaa yeelay waxaan badanaa wuxuu khuseeyaa haddii aad tahay waxay dhahaan database administrator ruux minaha ku takhasus keliya databaseka oo aan web developer ahayn marka inagu security iyo replication iyo waxa hadda kaba sheekeynayno so taskigan ugu horeeya wuxuu ahaa create database so inagu isticmaalna UI-ga oo wax code aan gacan ku qoraynin ayaan right click leeyahay database daarta inaad samaysid new database baad leedahay markaad dhahdid halkan aad waxaad samaynaysaa marka databaseka magac aan u bixinaynaa magacaan u bixin doonno waxaan ka dhigaynaa databasekeena waxaan dhahaynaa la follow db jaamacadda la follow ardadeedii iyo macallimiinteedii baan tusaale ahaan rabnaa inaan database lagu kaydiyo aan samayno la follow db ama database waad dhigi kartaa laakiin db waan iskaga soo gaabsadaa qasab maaha inaad db ku dartid la follow bisaad ku dayn kartaa laakiin si loo la garto db baa lagu daraa okay baan leeyahay wax kale uma baahan okay baan leeyahay ayse iyada ku samaynaysa wax yar baan sugaynaa waxaad dhahaysaa right click waxaad dhahaysaa refresh mana waxa waaye databaseki haddaan sameeyey ani wax badan baa igu jira laakiin hoos haddaan aado l haddaan tagno la follow db oo kuwaas kuwan kale waa database hore aan samaystay ama aan projectiyo kale ku sameynay marka waxbaa ka welin haddii aan pluskaas ka horeeyo furo oo aan xule internal folder baa ku hoos jira database kasta mid kasta kan haddaan furo intaa in leeg bay leedahay marka keenan database diagramkaas waan isticmaali doonaa waan ka sheekeyn doonaa tableska waan isticmaali doonaa views ma isticmaali doono kan ma isticmaali doono kan ma isticmaali doono kan programmability-gan waan isticmaali doonaa laakiin kaas bas aan ka isticmaali doonaa store procedure-ka oo cashirkana saddexaad u dambeeya ah intan kale waxba maaragtay nagama gelin hadda inama khuseeyo marka koowaad laba table baan inaan ku daro database waan sameeyey marka koowaad taskii u horeeyay kaasuu ahaa oo this task was done hadda waxaan sameynayaa laba table create table so waxaan barayaa hadda sida loo sameeyo table adoo isticmaalaya UI-ga waan ku jiraa user interface-ka waxaan waa kan macnaha waa right click-gan waxyaabahan badhamada kan la user interface marka table-kan tegayaa ama haddaan doono halkaan ku dhufanaya isku mid laakiin table folder-kan tegayaa right click baan leeyahay new baan leeyahay new table okay meeshan ay soo baxaysa waa user interface meesha wax lagu qoro okay ka u koreyn ka bilaab waxa way id oo ah teacher id-gii okay teacher id ka dhigasaan more specific noqdo waa kan waa column-kii magaciisii table marka laga hadlayo table sidiisuba excelka ama inaad access kusoo aragteen ba laga yaabaa waa meel wax la gashado wuxuu leeyahay waxay dhahaan column oo kuwana iyo row oo kuwana column-ku waa wax kan saa u dheer tusaale ahaan column-ka wuxuu noqon first name last name waxaas noqon karaa row-guna waa dayrigii lafteeda first name cabdiraxmaan faarax age-kiisu waa 20 waxaas waa row macnaha 1 row way 2 row 3 row marka waa column oo ku jirto 3 row of data waxa noocaas marka hadda column-ka ugu horeeyay waa teacher id data type-kiisa macnaha waxa la gelin karo data type waxa waaye meeshan teacher id maxaa geli kara ma text baa geli karta sida alphabet-ka kale ma number bas geli kara marka waxaan leenahay yes integer number bas geli kara wax kale oo geli kara waa int marka la save gareynayo ama la gelinayo ma uu ogolaanaysaa in teacher id marka qaar uu empty ahaado ama ever maya uma ogoli waa in wax la geliyo waayo okay intaa waan samaysay ka bacdi teacher id maxaa weeye waa primary id macnaha waa id-ga table-kan macallin kasta id-giisa waa unique waa inuu ahaada unique asaga bas askale soo ahaan 3 macallin baad leedahay mid waa wuxuu haystaa id 5 midna id 3 midna id 1 marka haddii aan dhaho id 1 macallin kala dhaho waan garanaya waa macallin hebel la yiraahdo address-kiisu size yahay maadada biology-ga dhiga ama maadada science-ka dhiga marka id-gu waa macallinkan wixii lagu garan lahaa marka teacher id waa saas waa unique so si aan unique ooga dhigno waxaan leeyahay right click waxaan leeyahay set primary key horta primary key ka dhig okay oo primary key muxuu ahaa waa waxa unique ka dhigaya bahalkan halkan aan imaanaya meeshan aad u yarkiisa hadii ka qarsoon tahay saas u yarkiisa saas meeshan artid meeshan hoose waxa ku qoran identity specification halka ku dhufo is identity ma wax macnaha identity oo unique ahaa okay yes baan leeyahay yes markaan dhaho automatically
meeshan wuxuu ku darayaa fiiri laba 1 iyo 1 wuxuu leeyahay identity increment iyo identity seed kan waxaa weeye markii record cusub lagu daro oo tusaale ahaan macallin la diiwaan gelinayo ID-gu inaga diiwaangeliyaha ah inaan siina ma systemkaan rabnaa inuu automatically siiyo ID-ga diyaarka ah marka waxaa leeyahay ID-yadaanada nooga bilow number 1 markastana hal ku dar oo tusaale ahaan haddii la qoro ruux koowaad ka labaad lambar 2 ka bilow ka saddexaad lambar 3 ka bilow ka afraad hal manaha kordhi haddii aan leenahay maye markii mid la qoro tusaale ahaan 1 nooga bilow laakiin ka labaad 101 ka bilow ka labaad 201 markasta 100 kor u kac 100 xabo kor u bood marka inuu waxaan hal xabo inaan kolba kor u boodno sida caadi sida nambarada nooga khaldan oo nambarada ay dhiideen isku xigaan macallimiinta 1 2 3 4 ilaa iyo intuu ka dhamaanay okay inta waan sameynay ka bacdi waxaan save waa badhankaas flop disk week dhag aan ku dhufanayaa table-ka magac uu wuxuu leeyahay magacaan table-ka siinaa waxaan leeyahay teachers oo s u dhamaysto teachers okay baan leeyahay waa ii save gareeyay waa diyaar okay column-kii labaad waxaan leeyahay first name waa maxay saw ma number ba maya waa text waa qoraalku marka waxyaabahan jira n varchar waxaas jira marka waxaan ka dhiganaynaa varchar hoos aad waa kan varchar 50 ka ku qoranta varchar 50 manaha waa 50gu varcharku waa text manaha waxa la gelin karaa alphabet 1 waxa la gelin karaa a b c d waxa la gelin karaa number xaraftooda waa lagu soo xaldi karaa maxamed jaamac 12 oo kale laba cali 2 iyo cali 1 oo kale waad gelin kartaa magaca first name-ku marka waa wax noocaas marka numberkan dhexda wuxuu u taagan yahay space-ka ama inta la siinayo macnaha inta xaraf ee loo ogol yahay magacu ma konton xaraf uu ka koobnaan karaa ma 20 xaraf marka inagu magacyadeenu konton wax gaaraya ma lihin Soomaali hadaynu nahay waxaan malanayaa magaca ugu dheer maybe inuu noqdo 10 ama 20 bas ka dhig maybe dad magac dheer ba jira 20 ka dhig null miya oo meeshan haddii mararka qaar recordku aan magaca first name macallinka uusan siino last name kaliya aan siiyo ma ogasha in first name uu ever ahaado maya ma ogoli waa in la buuxiyo qasab waa in la buuxiyo okay last name aan gelinaa last name asaguna waa varchar waa isla isku mid weeye varchar 20 asaguna null ha ka dhigin age baan ku jirta age-ku waa int waa number la soco age-ku text ma noqdo waa number waa asna null ma aha maxaa kaloo subject waxaan leenahay maye maxaan sameynaa subject waxa uu dhigayo ama class name classka uu dhigayo magaciisa waa varchar isaguna classka magaciisa uu dhaaran karaa biology iyo science ma uu dheeraan karaa marka konton baan ka dhigayaa null ka dhigin okay intaas waa nagu filan yahay waan dhamaynay save gare okay aan khalday talow subject ka dhig waxa ii suga idin horaaliya okay so khaladku wuxuu ahaa database-kii baan refresh aan dhihin marka halkan aan tagay right click baan idhi waxaan refresh table-kii baan tagay uu ii soo galay markuu ii soo galay waxaan marka save okay uu qaata hadda kan hadda aan ku dhufto table-kii uu noo soo galay kan iska xidh ilaa waan dhamaan ka dhamaysanay iska xidh kan column-yadii tag لا design tag أيوة الدنيا هاي يسوي هذا refresh عليها columns edit design طبعا شو الدنيا هاي maybe كنال كديك كنال كديك كنال كديك كنال كديك save كره okay معناه maadaama oo aan gelinay teacher ID maadaama aan gelinay oo aan primary ka dhignay marka u horeysay inaan save dhahna ma ahayn anaa khaldamay
marka u horeysay inaan save dhahna ma ahayn kaa keligii markaan samaynay ka wadaa kaa keligii markaan samaynay inaan sugnay inaan intaan dhan samayno hal mar aan save dhahno marka hadda wuxuu ku leeyahay warde id baa tir samee oo keligii aan waxba minaha kuwana waxaa tiri waxba ha gelin marka uu diidan yahay so hadda haddaan ka saaro mar labaad aan isku day inaan save gareeyo uu diiday ma aragtaa marka sidiisa inoogu daaya nullable ka dhiga dhib ma laha wax dhiba ma jirto iska close kale kan waxaa dhahdaa refresh dhaha columnyadii baan tegaynaa waka way soo galeen columnyadii ma aragtaa okay now haddaan rabo inaan arko wax ku jira table teacher hadda waxaan haystaa database la yidhahdo la follow oo hal table oo teachers la yidhaahdo macallimiinta igu jirta inaan ogaanaan rabaa right click baad leedahay waxaa leedahay select tab 1000 rows baan leeyahay guess what wax ku jira male haddaan samaynay waa kan wax ku jira male meeshan waxaan kore iska dhaaf tan kore waa hadhow cashirkeena labaad baan ku baran doonaa oo markaan idin leeyahay UI macnaha waxaa waaye kan waxaan kama hadlayna hadda laakiin cashirkeena labaad UI-gan right click waxaan ma dhihi doonaa kanaan waxaa lagu shaqayn doonaa luqadan SQL-ka ama query-gan lagu shaqayn doonaa marka hadda meeshan oo safiri teacher ID first name loo ever waxba kuma jiro inaan wax gelinaan rabnaa marka hadda iska saarkan teacher kii laftiisa right click haysaa waxaa la edit tab 200 maarta edit okay baan leeyahay waa ii soo baxayaa haddaad u fiirsatid teacher ID-gu waa gray minaha wax ma gelin kartid because systemkan u sheegnay inuu ID-ga automatically inoo sameeyo isagoo halka bilaabaya ma xustaan first name ka bilow first name macallin koowaad cali jaamac age-kiisu waa 30 jir wuxuu dhigaa math okay waxaan leeyahay tabka taabo automatically fiir 1 buu ka bilaabay ma aragtaa tab dhahdana okay Mohammed Wali so 26 weeye wuxuu dhigaa English tab aan leeyahay okay labo ku xiji isaga automatically sameeyay ma aragtaa waxaan dhahayaa Sarah ama Sahra Nuur waa 22 jir gabadhaas waxay dhigtaa biology bay dhigtaa gabadhu tab baan leeyahay okay 5 macallin baan gelin doonaa insha Allah 5 macallin bas waxaan gelinayaa Umar Farah isna waa 18 years old so waa sports buriga waa nin jimciyaha sports yahana Fatumo Ali waa gabadh 19 years old waxay dhigtaa iyaduna waxay dhigtaa geography dhigtaa gabadhu okay 5 macallin baan haysanaa iska cancel garee kan automatically asagaas marka tab dhahdo tabkaas save gareynaya waxba mise marka tab markaan tab dhahnaba asagaas save gareeyay so hadda macallimiintii right click dheh select tab 200 okay meeshan hoose fiir marka uu soo galay macallimiintii diyaar marka 5 macallin baa haysataa Ali iyo Maxamed iyo Sar ID-dooda ka 1 2 3 4 5 macallin baa haysataa good hadda artina table kan delete ku sameysid right click baa leedahay waxaa leedahay delete ha sameeyna hadda aan ku tusayaa delete baa leedahay oo systemku ka saaraya hadda arta database inaad delete ku sameysid right click baa leedahay waxaa leedahay delete taas looga saaray laakiin hadda inoo ma sameeyno okay waxaan rabaa inaan ku daro class kale oo la yiraahdo students oo wata student ID first name last name age teacher ID iyo wuxuu wataa intaas uu wataa in bal isku day marka inaad samayn kartaan laakiin anna haddaan samaynayaa haddaad rabtid ila fiirso haddii kale intaad post dhahda videoga aad isku day inaad samays waan kugu celinayaa waa student table la yidhaahdo oo ID-ga u horeeya wuxuu wataa student ID waa primary key waa arrow increment first name last name age iyo teacher ID intaas uu leeyahay okay anna waan samaynaya hadda new cafwan tableka waan tegayaa waa ka tablekii right click sorry right click table okay student ID and waa integer nullable maaha right click waa leeyahay set primary meesha hoosaan aadayaa iyada ahayd identity yes baan leeyahay okay
first name waa varchar varchar 20 aan ka dhigayaa nullable maaha last name waa varchar idana 20 nullable maaha age waa integer nullable maaha halkan teacher id maarta teacher id and waxaa weeye waa integer asagu nullable way teacher id waxaan ku darayaa afwan gender waa varchar 10 ka dhigaa nullable maaha varchar inta markaan sharaxno waa id-gii arday kasta oo class dhigta id uu leeyahay waa arrow increment oo hal baan ka bilaabaynaa korna u soconaynaa inagu inaan id-ga supply garayna ma systemka automatically one inooga bilaabaya first name kooda last name kooda age kooda teacher id-gani xaguu ka yimid arday kasta macallin buu leeyahay soo ma macallinkii shanta ahaa aan haysanay ee tableka macallimiinta inoogu jira id-gooda halkan la gelinayaa soo macnaha maxaa weeye ardaygan la yidhaahdo tusaalahaan Aisha Faarax oo 12 jir ah macallinkeedu waa 1 macallinka 1 la yidhaahdo id-giisu muxuu ahaa okay if you go back to the teachers and right click and select tab 2 hadaan dhahno macallinka 1 la yidhaahdo oo teacher waa Cali so Cali meeshaad ku qornayd id-giisa bas aad gelinaysaa so annagu waan iska garanaynaa inuu Cali yahay oo math dhigo gabadhan ay math dhigato waan iska garanaynaa ma fahanteen marka genderkana waa inay gabar tahay inay wiil tahay okay now waxaa leedahay save oo kana waxaan dhahaynaa students oo s u dhamayso okay waan leenahay waa inoo save gareeyey tablekii oo kana ayaan right click leenahay refresh baan leenahay waa kaas teacher student soo galay maarta hal xabaan ilownay tusaale ahaan kas baan ooga tagnay waxaan rabaa inaad ogaatiin hadda studentiga waxaan ku daray gender oo inuu ardaygan yahay gabadh iyo wiil midun macallimiinta soo ma fiicnaatay inaan ogaano in macallimiinta gabdhaha iyo macallimiinta wiilasha yes way fiicnaan lahayd marka waxaan sameynaynaa macallinka right click leenahay waxaan leenahay edit design design drt column inaad ku dirtid waxaan leeyahay marka dib ugu noqon karaa caadi wey is fine waxaan leeyahay gender waa varchar 10 waa nullable yes okay because systemku waan uu sameeyay already like waa inoo galay maarta now haddaan marka rabno inaan macallimiinta iga ahaa genderkooda ku daro maadaama hadda column cusub aan ku daray right click baan leeyahay edit tab 200 baan leeyahay macallimiinta soo baxay fiiri genderkooda waa null maarta lama garanayo okay cali baa maxay waa male okay yaa ku xiga waxaa ku xiga maxamed waa male waxaa ku xiga Sarah waa female waxaa ku xiga Umar waa male waxaa ku xigta Faadimo waa female I think waa inoo dhantahay waa shantii wakaas waan gelinay so haddaan xidho waan haddana macallimiinta ku noqdo on right click baan select dhaho inta ugu koreysa wakaas soo gala maarta good iska xidhaysaa okay waxaan ku noqonayaa ardaydii hadda arday ma haysto haddaan dhaho select tab 1000 ma ardayda eber ardaydii marka waa inaan geliyo so waxaan leeyahay right click edit tab 200 ardayda waan badinayaa ilaa waxaan gaarsiinayaa 20 ama 10 baan gaarsiinayaa marka waxaan ka bilaabayaa Aisha Umar waa 12 jir teachers codega waa number 2 yuha Cali la socda waa female gabadhan okay waxaan gelinayaa Jamal wali waa 13 years old macalinku dhiga still number macallin baa u dhiga waa male Nuura Osman waa 8 years old waxaa u dhiga macallinka labaad waa female okay yaa ku xiga waxaan dhahaynaa magacyada iga dhumada Suhayla Mohamed
She's 14 years old. How old معانا saddexaad waa female. Okay. Umar Qorani waxaa weeye 10 jir weeye. waxaa u dhigaa macalinka saddexaad isagana waa male. Okay. Allah mustacaan. Umar kala dhahna Umar wali waa 10 jir. waxaa u dhiga macalinka afraad baa u dhiga waa male. Okay, waxaan leeyahay Suhayla kale laba Suhaylaan haysanaa laba Suhayla Cabdi iyada waa 7 jir. waxaa u dhiga macalinka saddexaad waa u dhiga weli sorry macalinka waxaan dhahaynaa shanaad waa female. Okay, Ahmed Ali so waa ninka ugu weyn dhalinyarada 16 jiraa. Okay, waxaa u dhiga macalinka shanaad waa male. Okay, Abdiwali Farah so waa 9 years old. macalin ma haysto ninkan weli. marka macalin ma haysto marka kule macalinkii meesha teacher ID-gii waad ka boodaysaa waxa ma gelinaysa null baad ka dhigaysaa meaning this ardaygan weli waa macalin looma assign garayn weeyaan male. waa arday cusub ma hadduu isdiiwaan geliyey macalin weli looma assign garayn. Okay, and waxaan isna sameynaynaa magacyada horaan isticmaalayaa. Jamaad Dakhare waa 11 iyadna macalin weli ma laha waa female. Okay, Gabow Kurtumow isna waa 8 years old. macalinkii labaad baa u dhiga waa male. Jamal isna waa 7 years old. waxaa u dhiga macalinka labaad waa male. Okay, I think intaan ugu filan that's enough ahaan information baan dhihi karaa aynu ku tartanno ama aynu wax ku fiirino. Okay, so iska cancel gare studentigii tag waxaan leeyahay top 200 katus. Alright, markaas maarta soo galan Aisha Umar agekeedii 1 ID-ga macalinka u dhigaa genderkii laba arday oo macallimiin haysanin baan haysanaa laakiin labada ardayna teacher ID-gooda null waay macnaha weli macallin lama assign garin. Good, so macluumaadka waan haysanaa. waxaan sameynaynaa markaa labadan teacher iyo teacher ID iyo student ID wax xidhiidh hadda kama dhexeeyo. kan number 1 kani ma yaqaano teacher ID-gan oo ardayga ku jira ma yaqaano in uu ID-gan ka keenayo teachers ma yaqaano. macnaha genderkan la geliyey ama xisaabta hadda age-kan iyo 1kan hadda systemka uma kala duwan because waxaa own number you don't know macnaha numberkan wuxuu yahay meesha laga keenayo laakiin waa inaan u sheegno hey numberadan aan ku gelgeliyey number caadi ma waa ID jira oo database-ka ku jira oo first name iyo last name waxaa leh. haddaba si aad u ogaatay meeshaad ka soo qaadaysa waa in labadan table aan isku link garayno. so how do we do that? It's called waxa la relationship xiriir ka dhaxeeya labadan table waa inaad adigu u sheegtid see loo sameeyaa. diagramkaas baad tegaysaa you right click waxaad dhahaysaa new diagram waxaad leedahay yes markuu calaamada kuu soo baxdo tableladii buu ku dhahayaa okay labada table baad rabtaa inaad xiriir ka samaysid student iyo teacher asagoo wuu garanaya inay ugu jiraan database-kan. okay labadan table waad highlight garanaysaa labaduba add baan leeyahay. okay, kana waa iska cancel garanaysaa meeshan ay kuu soo fadhiistaan labadii tables sida waad qadqaadi kartaa waad wareejin kartaa kan xagga soo marin kartaa kan xagga kale marin kartaa original xagga kale you can move around it's fine wax dhib ma laha. anoo hold and then drag that's what I'm doing. I'm holding keyboardka tuna labada gacmo midna ku drag garanaya maarta. Okay, now teacher ID-gan waxaan jeedaa teacher kani wuxuu ku la xidhiidhsan yahay macalinka xaguu kala xidhiidhsan yahay
teacher ID gan minaha teacher ID gaas oo primary u ah macallimiinta ayaa wuxuu ID oo u yahay column ardayda soo saan isku link garayno waxaan sameynaynaa kan ku dhufanaynaa calaamadda keyga aad ku dhufanaysaa oo dhigaranaysaa soo jiidaysaa maarta waxaas yarkay soo baxay xariiqinta soo qaad teacher ID-gii kan ahaa oo aad rabtid inaad balaas ka maartay markuu balaas soo baxo ku siidaa ku dul siidaa dhag okay waxaan soo baxay wuxuu leeyahay okay so primary key oo teacher table ka waa teacher ID foreign key ama column keyga minaha foreign ka ah ee isku xidhay labada table ee ku jira student table waa teacher ID marka inaad isku xidhartaa haamiya magac buu bixiyo FK waa foreign key students teachers loo okay I'm fine magacaas waa bedeli kartaa ama okay waa leedahay dhag calaamadaas soo bax maarta calaamadaas soo bax haddaad jiida hadda kama haraysa calaamadii maarta way la socotaa hey labadan table way isku xidhan yihiin waay ma kala hari karaan midna waa furihii oo macallinkii midna waa la furihii oo waa studentigii marka now systemkan wuxuu yaqaanaa ardayda ku jirta studentiga ay dhiigood inuu ka imaanayo teacherkaas uu yaqaanaa so waan isku xidhayaa waxaan leeyahay save barnkaasa ku dhuftay diagramkii magac u bixi ku leeyahay waxaan leeyahay students teacher diagram waan leeyahay enter markaas yes baad leedahay okay haddaad tigta diagramkii okaas uu soo galay waa iska xidhi kartaa kan diagramkan hadhow fil mustaqbalka haddaad ku dhuftid diagramkii uu kusoo baxay macnaha waa system kuu yaalla oo kuu diyaara waa okay now cashirkani waa cashir iska yar buu ahaa waxaan kugu tusayay uun sida loo sameeyo database sida loo sameeyo laba table 1 iyo 2 sida laba table kasta wax loogu daro waxaan looga jaro sida macallimiin loo geliyo arday loo geliyo macallinkii ardaydii sida la iskugu xidho ayaan tusayay marka cashirkan waxaan isleeyahay haddii aad rabtid inaad macallimiinta waxa ku jira ogaatid you right click and you say select tab 200 macallimiinta soo baxday haddaad rabtid inaad teachers ogaatid sidoo kale select tab 200 haddaad rabtid inaad macallin ka saartid you right click you edit and you click halkan you right click and you say delete maarta you can delete macallin although we don't want to delete haddaad the whole thing inaad cancel garayso calaamadda ku dhufo and you right click and you say clear ama delete and the whole thing will be gone we don't hadda mar ma samayn karo because macluumaadkan u baahannahay ardayda baan tegayaa waxaan leeyahay sidoo kale edit tab 200 ardaygaada rabin wixii aad ka khalday tusaale ahaan kana waxaan wuxuu ahaa 9 jir 10 baan ka dhinay 9 baan ka dhigayaa waa saxay kan female male buu ahaa ama maartay waa bedel Suhail oo kale waa Suhail buu ahaa tusaale ahaan oh okay then I'm going to say Suhail and then I'm going to say male ka okay waa diyaar tab baan leeyahay waa galay Suhail iyo Suhail hadda aysan waa laba markan oo wiil kan waa gabadh haddaan inaan isaga dhaleed gariix halkaas ku dhufanayaa isaga dhan buu highlight garanayaa haddaan inaan ku khaas sameeyo kanaan ku dhufanayaa markuu saa u highlight garismo right click delete baad dhihi kartaa so hadda waxaad baratay sida loo manage gareeyo database oo la iskugu xidho laba table loo delete gareeyo wax loogu daro wax looga jaro haddii tusaale ahaan aan rabno inaan ku daro column cusub waxaan ku right click samee waxaad leedahay design you go to design kii baad tegaysaa and you add the column but make sure columnku inuu yahay nullable haddii kale uu kaa diidaya because table-kii waa already la sameeyey mar haddii la sameeyo oo macluumaad ku jiraan waxaan nullable ahayn kaama aqbalayo okay I think cashirka intaasaan ku joojinaynaa adigo raaqdeen aan dib ugu raaco again waa cashir kooban oo intro ah database SQL waa luuqad loo isticmaalo database-ka waa meesha wax lagu kaydsado tusaale ahaan website la yidhaahdo somali.lafollow.com baan leenahay markay soo galaan meel waxaa jirta leeyahay add student marka add student la dhaho form baa soo baxa first name last name age marka la buuxiyo add button lagu dhufto meeshii macluumaadka uu fariisan lahaa weey meeshan aan sameeyno macluumaadka meeshuu tagi lahaa weeyaan kuwan hadda aan ka shaqeyno waa meeshii tagi lahaa website-kii wuxuu ku xidhan yahay database-ka la follow la yiraahdo database-kan waxay sii leedahay tables la yiraahdo students iyo teachers marka macallinkii website-ka laga diiwaangeliyo halkan uu soo fariisanaya marka ardaygii laga diiwaangeliyo website-ka halkan uu soo fariisanaya hadhowto page kale oo website-ka waxaa la yiraahdo list all student oo kale marka lagu dhufto then halkan ayuu maana website-kii wuxuu ka qaadanaya student-tii magacyadooda dhan then uu ku tusaya marka website-kii marka intaas baan rabaa inaan idin sheego. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.